hooyooyinka dhallinyarada haweenka bahda saxaafadda taliyaha booliiska taliyaha nabad sugidda waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka waxaanu tukow aad iyo aad ugu hambalyeynaa taliyaha booliiska ee degmada xamarweyne taliyaha nisa ee degmada xamarweyne oo kaalin weyn ka qaateen amniga ee xafladda maanta sanadlaha ah ee soo jireenka ah ee taariikhda 1250 soo socotay inay maanta si nabadgelyada ku dhammaato ilaahay maantaas leh ka soko waxaan u mahad celinaa labada taliyo maamulka degmada xamarweyne oo ka qaatay kaalin weyn gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda xogeyaha guud degmada iyo dhammaan konsolka oo dhanbo oo juhdi ku bixiyey barnaamijkan waxaan leenahay sanadkiisa ilaahay caafimaad iyo cimrideyn nagu simo waa markii ugu horeysay beelaha banaadirigoo dhan ay hal yihiin dad qanacsan sabood ama taageero kuna qanacsan xukuumadda cusub waxaana ka dareemaysaa dhaqdhaqaaqa bulshada waxaan aad iyo aad aan leeyahay barnaamijkan maanta sanadlaha ah ee soo jireenka ahaa ee aa u jeedeen dhaqankii banaadiriga ahaa wuxuu soo socday muddo 1250 taariikhdaasna taariikh sahlan ma aha dad xalaalad la waaye waa dad rabo inay nabadgelyada waxay dareemaysaa nabadgelyada inay ka mid tahay iyo isdhexgalka bulshada beelaha banaadiriga waa dad u hoggaansan xukuumadda imaan inay taageeraan oo caadil ah oo daacad ah waxaan ugu baaqayaa dhammaan mar kastaba shir kastoo aan imaado ugu baaqaa ummadda soomaaliyeed beelaha banaadiriga mar kastaba in ay aad u taageeraan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah nin unaysta ah daacad ah mar kastana waa dhaha waana dhihi doonaa buu leeyahay waxaan leeyahay waa in lagu taageeraa taageero ma aha keliya afka waa in lagu taageeraa naf iyo maal sida xukuumaddaas loo dardargelin lahaa sida cadaawadda loogu qaban lahaa waxaan ka codsanaynaa insha allah odayaasha dhaqanka iyo culimaadudiinkaba inay masaajidyada qur-aanka ku aqriyaan si ay xukuumaddaasi u noqoto xukuumad tiir ah ee aanan marnaba la qaban karin waxaan leeyahay soo dhowaada mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad bulshada reer banaadir oo ah bulsho reer nabadeed ee aanan jeclayn wax rabsha iyo dhibaatooyin insha allah maanta xuquuqdiina waxaan dareemayaa waxaad ka dareemaysaan sida nabadgelyada leh ee aad u damaashaadaysaan waa ugu damaashaadaysaan gobolka banaadir degmada xamarweyne macnaheeda waxaa waaye nabadgelyadii inay taam tahay waaye waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa dhammaan hay-adaha amniga dhallinyarada ciidamada madaniga oo ah u taagan degmadooda 24 saac iyagan u ah inay naftooda u huraan aadaan ugu mahad celinaa ciidamada madaniga ee maanta juhdiga ku bixiyey inay amniga degmadooda gacanta ku dhigtaan ilaaha ma haddaas leh ka sokoona ayagaa iska leh mana la iloobi doono nin inuu gurigiisa ilaalsado waxay ku jirtaa sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waxaan aad iyo aad aan ku baraarujinaa degmooyinka kalena inay ku daysadaan madaniga degmada xamarweyne sida ay falanteeriga u taagan yihiin habeenii maalin waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad soo dhowaada waa idiin soo wada labeynanaa